waan ku salaamay saaxiib. waxaan kaaga digayaa in imtixaanka ku qabsadaa oo aragto inuu kugu daba dheeraaday oo aad xanaaqdo amba waad furdaaminta rabbigaa raagsato oo aad quusato waxaadna noqoto sida kuwa ilaahay u caabudaa habka labalabaynta iyo tuhunka leh ee haddii ay kala kulmaan waxay jecel yihiin oo raaligelinaya kaga raalli noqdaa haddii ay kala kulmaan waxay karahaan oo ay dhibsadaanna ka cadhoodaan. saaxiib wax waliba waxay ku socdaan qadar rabbi si xilliyaysan oo xadidan oo aynaan innagu waxba ka garanaynaa way u socdaan. haddii ay wiilashii agoontaa la soo bixi lahaayeen kaydkii aabbahooda uga dhintay ka hor intii aanay qaangaadhin hantidaasi way ka dayacmi lahayd oo kama aanay intifaacayn. wax kastoo inaga soo habsaamaa waxa uu leeyahay samo aynaan inagu daadanayn. adduunkani waa deegaan imtixaan saaxiib. ilaahayna qalbigaaga ayuu daalacanayaa oo haddii ay ku haleelaan waxaad necab tahay ambaba wixii aad jecleed ay kaa dib dhacaan qalbigaagu mar leyba raalli ahaansho iyo qanaaco ha lahaado. ma jiraan waxuu ilaahay ka necab yahay inuu arko addoonkiisii oo qadarkiisa ka cadhaysane. mararka qaar ayaa riyooyinka la naawilaa soo daahayaan saaxiib maadaama aanad weli u bislaa inaad ilaashato nimcadaas. way soo daahayaan maadaama u diyaargarowga hagaagsan ee qalbigaagu aan weli dhammaystirmin. way soo daahayaan maadaama aad weli dembi ku dhex jirto. ilaahayna waxa uu kaa doonayaa in isaga arrimahaasoo dhan marka hore aad u hurto si uu isaguna riyada aad naawilayso kuugu deeqo. way soo daahayaan maadaama aanad sababihii keedsanayay si buuxda uga soo bixin. waxaa laga yaabaa inaanay weligood bayman maadaama muqnaashiyoodaasi uu khayr kugu jiro ee malaha aad ilaahay ka leedahay wanaaji. nabaadiina saaxiib.